iyo qofka ilmihiisa dayaca meeshuu ku dambayn doono wuxuuna yidhi qofka dayaca ilmihiisa oo aan barin wax anfaca adduun iyo aakharaba dantiisana ka raacda horta jariime iyo dembi buu galay mid kalena wuu raaciyo wuxuu yidhi carruur badan oo dhuntay oo waddada ka leexatay sababka waxaa u ah waalidka maxaa dhacay sidee waalidka ugu ahaanaya imaa inuu dayaco oo uusan dan ka gelin wa imaa inuuba asaga kaga daydo dhaqan xun qaacido kale ayaan iyadana sheegi doonaa qaacidanaada waa digniin waxaadna soo saaraysaa ilma aan asaguna is-anficin adiguna aan ku anfacaynin bulshadana aan anficin waxaa qalbigayga xanuujiya waddanka la yidhaahdo ingiriiska caasimadiisa oo london ayaa nin askari ah oo garaado sare leh ayaa yidhi soomaalida ha la igu yeedho marka loyskugu yimid ayuu carruurtooda oga sheekeeyey inta xabsiga ku jirta iyo inta daraagiska bannaanka la taagan iyo intaasoo waxbarashada ka tagtay reerkoodiina ka tegey adduun iyo aakharana iskugu fillayn laba jumlo xanuun badan buu yidhi oo la doonaya inaannu garanno wuxuu ninkaa gartay aan ilaahay rumaysnayn wuxuu yidhi carruurtiinnu soomaaliye idinkuna idinma anfici doonaan annagana nama anfici doonaan idinkana idinma anfici doonaan annagana nama anfici doonaan dalkeennana ma anfacayaan ee adigana kuma anfacayo asaguna isma anfacayo ilmahaas weeye ilmaha aad soo saarayso waalidow haddaad ilmahaaga aad ka mashquusho oo aad xaqiisa siin weydo qaacido kale ilmahan doonayna inaan soo saarno waalidka waxa laga rabay ugu weyn waa maxay waxaan leenahay kow ilmahaaga caqiidada toosan bar si fiican u dhageyso ilmahaaga caqiidada toosan bar si uu ilaahay si dhaba ugu caabudo si uu iskaga ilaaliyo shubuhaadka iyo waxa lagu yeedhayo shayaadiinta ilxaadka iyo diin la'aanta ilmahaaga waxaad bartaa cibaado toosan bal hal mar gacanta ii taaga run iyo sidqina ayadoo warkaasi uu ku dhisan yahay waa kuma aabbaha meeshan fadhiya ee ugu yaraan 2 biloodba mar ilmihiisa intuu meesha waysada keeno inuu yidhaahdo weysayso waan eegayaa waan fiirinayaa inay waysadaadu sax tahay in kale gacanta bala la taago yaa bar ilmihiisa waysada ilmahana tukaan dhahnaa muxuu tukadaa saaka markuu iskuulka guri ka tegayay markuu ku soo noqdo markaad warmaa tukatid oo maad weysaysatid saakaan weysaystay buu ku dhihi saakaan weysaystay say ku jabtay maxay ku jabtaa adiga laga doonaya ilmahaaga war tuko ma soconayso sida loo rukuuco sida loo sujuudo waxa la aqriyo adaa u qoolan maalinta qiyaamo adaa lagu weydiin maalinta qiyaamo saxiixul cibaada inuu ilmahaagu la yimaado rasuulullaahi baa barayey nabigu sala allahu calay wasalam saxaabaduu barayey asagoo masjidka ku jira ayuu ninbaa soo galay saxaabi ah se wuu tukaday salaadii nabiga salaadaan ahayn buu tukaday sala allahu calayh waali wasalam markaasuu nabigu yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo ma aadan tukanina soo tuko hadduu nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada sidaa salaada u barayo oo intuu mimbar fuulay uu yidhi ifiiriya sida loo rukuuco fiiriya sida loo sujuudo fiiriya maxaad u malaynaysaa adigu rasuul baa tahay carruurtaada adaa rasuul u ah nebi maxamed ma soo baxayo nebi maxamed mana soo noolaan doono adigaa ilmahaaga rasuul u ah adigaa la doonayaa inaad barto qodobkood muxuu ahaa caqiido toosan oo saxiixa oo ilaahay uu kula kulmo caqiidatu muxamedin sala allahu alay wasalam ma aha caqaa'idka firqooyinka dhumay ma aha caqiidadooda caqiidadii nebi maxamed sal ly slam caqiidadii abubakr caqiidadii cumar iyo cuhmaan iyo saxaabatu rasuuli illah waqul ina khayra annaasi bacda muxamedin wasiiraahu qudman ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس
بالخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة دمدح صحابة طبنك الجنة هالمر له بشاري يكون عن شيخنا أوردن وددودي iyo caqiidadoodii ay ku dhinteen jannadana loogu bishaareeyay adiga laga doonaya ilmaha inuu barto la aqeedat al-khawarij wala aqeedat al-ash'ira wala aqeedat al-mu'tazila wala aqeedat al-jahmiyya wala aqeedat al-qadariyya wala aqeedat al-shi'a wal-qaramita la aqeedada laga doonaya ilmaha inuu barto wa aqeedat Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakr iyo Umar iyo Uthman عبادتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام الماغينا برتا لغا دونيا صدح مثقف الفكر المام مسكعدي سفرنتهي او ادونك لا سوده او واقع لا سوده او waxa ku hareeraysan garanaya yula saaxiiba ya garanaya saaxiibka dibkiisa garanaya yula soconaya garanaya shubuhaadka garanaya diintiisa waxa shakiga ku beeraya garanaya مثقف الفكر عرورتنا قدر كلام كدغي دوناي او دي دونا ما لا شيكيستا ilmahaaga ma la fariisata ilmahaaga waqti ma siisa ilmahaaga qaacida kale ay soo socoto way laakiin waxaan doonayaa inaan dhoon ilmaha sidee u noqon kara ilma maskax furan isha مثقف الفكر سو noqon kara ilma maskaxdiisu furan tahay ilmaha maskaxdiisu waa warqad cad way wayna maran tahay adaa laga rabaa inaad buuxiso hadaad buuxin weydo waa lagu buuxinayaa هذا بوحي ويدو عيد كلا بوحي دونت كنت لا قررنتا وحولا قاري دونا وقتي آدم وحبك قبل دوني او أشلين دونتو او فرطة دحدة كقنيني دونتو او آدم قاري كريم ايات قاري دونتا المهاجة قضبك عجائب كله وحولا يهي او قضبك إلحي إلى إسلا قضبك أيها الآباء من الممكن أن يكون أحدنا فقيرا ماديا وحاصر تقلا ماذا نجا ماذا إنه سنحولة بدن هيسنين ولكن لا يمكن أن يكون فقيرا في التربية لكن إن المهجة التربية ويدو تاوي الدنلقة هي فقر قطع هذا الحولة ويدو نما لكن سلام المهجة عراشه يدي أدوغي إنه كجري maalintuu dhalanahay aad dul taagnay ilaa 20 sano oo adiga hoostaada ku noola oo aad wax u gadaysay oo cunto siinaysay inaad tarbiyeyn weydo hada huwa alfaqr alhaqiqi faqriga dhabta iyo faqiirnimada dhabta waa mida ee faqiirnimada kala ma aha inaad xoolo weydo idan ilmaana waxaan u baahanahay inaan ilmo faqaafo leh oo adduunka la soconaya oo xaaladda jirta garanaya adaa laga doonayaa inaad soo saarto متين الخلق مد أي آسنتهاي أو أي لذبله س أي آسنتهاي أخلاق ليسو إلما أخلاق سرله قرن هيا لبدا ويل سيدو أولا دقمه قبل ذلك إلهي سيدو أولا دقمه سبحانه نبي محمد سيدو أولا دقمه أنبياء عليهم السلام دينت إسلامك سيدو أولا دقمه عدة كوين سيدو أولا دقمو عدة كير سيدو أولا دقمو حيوانك سيدو أولا دقمو قالدا سيدو أولا دقمو وددا سيدو الله أمره وإنو قرنيو وحالا متين الخلق عرب كيسة إيا إنديسو ماشا كنا عيان وإنو يقان لويسو وحي لويسو قادة وإنو يقان متين الخلق مروءة إيا الشرفة قف إلى لنهيا دين تشرفت هذا إلى لنهيا سومالي لماذا شرفت هذا إلى لنهيا دد نمديس إلى لنهيا والدك إلى لنهيا مسجدك إلى لنهيا خميسك قبا إلى لنهيا قرآنك حسنة إلى لنهيا وين النقطة متين الخلق متين الخلق وحان ربائنا إنه عذر والبوء الدون كجرة ولا داوين كرا لكن أخلاق لما داوين كرا أخلاق هدي أمالي أخلاق كالو سيدو الشوقي يري إنما الأمم ما بقي أخلاقهم فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا أمالي وأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم نبي محمد با أخلاق با
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والحديث في سنده شيء لكن آياتك هي النصوص تحوجي ليس معناه صحيح معنى هذا الحديث الصحيح سلا درادة وإن المتين الخلق وإن الأخلاق أذك عن المهن وكبرنا ولماذا ما ينوي هذا قاعدة دس المهن ربئنا صوص رواك حصوصتا المه عقيدة توصل له أو عبادة توصل له أو مسكعدي سفرانتاي أو أخلاق هوسو قرن له قوي البدن المد سنبل الربع ما برا المهن كرتين قل ما كرتين maxay caruurteenu u dhuudhuubayiin maxay caruurteenu matagana u tabaryariyiin hadday jaranjarta soo koraan maxay la hirayaan ilmaheenna waa inaan jirkooda dhisnaa adaa lagaa doonayaa la orotan ama meel orodagee ama jiimkee ama matagana activiteedka ilmaha jirkiisa dhisa adigaa lagaa doonayaa maxaa yeelay ilmahan wax weyn baad u diyaarinaysaa matiin aljasad waxaa leeyahay qawiy albadan المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن كقوي مؤمن كإلهي أرتيسة ولو ذكرك البنية مثل ضعيف نافعا لغيره المو احترع أو ضدك واحتريا أو لبضنش واحتريا أو قرابة واحتريا أو درسك واحتريا أو صاحبك واحتريا وإنه النقضاء نافعا لغيره نافعا لغيره حريصا على وقته وإذا صوصارته المقرنية وقتك إنه قيمة وفريو وقتك المهنة مقرى وقتك إنه قيمة وفريو مقرن كرتان عذرك أبوين المهنة حتى الآن إنه وقتك وضع الضيعان كوكلفا مقرنيسا وقضب عن صوضوء كودا يشدو iyo qudwada aabaha iyo hooyada yaa qaybka ilmuhu inuu waqtigiisa ilaaliyo aabaan waxba akhriyeen aabaan waqtigiisa ka faa'iideysanayeen in shaaga ciduu soo saari karo ma dhici kartaa ilmo wax aqriya inuu soo saaro ilmaheena waa inaanu ku tarbiyayna inay noqdaan ilmo waqtigooda ka faa'iideysta yabna aadam ogow adiga dhanba waxaad ka kooban tahay jirkaaga oo dhan iyo noloshaada oo dhan waa waqtigaaga daqiiqada hadday ku dhaafto jirkaaga qayb kamida baa baxay jirkaaga qayb kamida baa go'ay sidaa daraaddeed waqtigu ilaahay baa ku dhaaftay walcasri buu yidhi wallayli buu yidhi walduxaa buu yidhi walnahaari buu yidhi ilaahay baa walcasri buu yidhi ilaahay baa waqtiga ku dhaaranaya subxaanahu wa tacaala waa inaad soo saarta marka ilmo waqtigiisa ka faa'iidaysta wax anfacana ku bixiya waa inaad soo saarta